waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka dushiisa ku abuuray waxay u kala baxaan noole iyo ma noole. noolaha iyo ma noolaha waxaa ka dhaxeeya barasho ay nooluhu bartaan ma noolaha sida dhagaxa, ciidda, buuraha, badaha, webiyada, jasiiradaha, dooxooyinka iyo wixii la mid ah. noolaha dhexdiisana waxaa ka dhaxeeya isbarasho, dadku isbartaan qof qoys iyo qaran ilaa qaarad. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha sharafta iyo maamuuska leh ee hawada sida tooska noogala socda ku soo dhawaada barnaamijkeennii xiisaha iyo aqoon kororsiga lahaa ee mucjisooyinka meeraha dhulka oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Sam News TV. waxaynu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa jasiiradaha Maldives oo ku yaal bartamaha badweynta Hindiya. waxaa idiin soo tabinaya oo idiin soo diyaariyay anigoo ah injineer Maxamed Warsame Akabe. daawasho wacan barnaamijkii mucjisooyinka meeraha dhulka. jasiiradda Maldives waa jasiiradda ugu qurux badan jasiiradaha koonka dushiisa saaran. waa dal ku yaal qaaradda Aasiya. waa dal ahaan jiray 1400 sano Buudhisti qaatayna diinta Islaamka. magaca qaramada midoobay ay kaga diiwaan gashan tahay waxaa la yidhaahdaa Jamhuuriyadda Maldives. waa jasiirada yaryar oo ku yaal koonfurta Aasiya dhacdana badda Carbeed ee bartamaha waqooyiga badweynta Hindiya. waxayna xuduud ahaan ku aadan tahay koonfurta galbeed ee Sri Lanka iyo Hindiya. waxayna beriga qaaradda Aasiya u jirtaa 1 kiiloomitir oo u dhigma 620 mayl. waana dalka ugu yar qaaradda Aasiya. Maldives magaalo madaxdu waa Male. tirada dadka 516,000 beedka dalka 298 kiiloomitir oo laba jibaaran oo u dhigma 115 mayl oo laba jibaaran. jinsiyadda 100% Maldavian. lacagta dalka Maldavian rupiah halkii Mareykan ee US dollar wuxuu u dhigmaa 15.45 senti oo Maldavian rupiah ah. diinta dalku waa Islaam. furaha lagu galo waa 960. juqraafiga jasiiradaha Jamhuuriyadda Maldives waxay ka kooban tahay 1192 jasiiradood oo ku hoos jira 26 kooxo wadareedyo jasiirado ah oo u eg qaabka shaxanka laydiga ah midna u eg qaabka faraatiga marka loo eego dhibic kasta oo jasiirad ah gaarkeeda. waxayna ku dheerarsan tahay ilaa 871 kiiloomitir laga soo bilaabo min waqooyi ilaa koonfur oo ku fidsan qiyaastii 90,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran oo u dhigma 35,000 oo mayl oo laba jibaaran oo ay 298 kiiloomitir oo laba jibaaran tahay bari. waana mid ka mid ah wadamada adduunka ee kala baahsan ama kala fiiqsan. waxaana lagu nool yahay 200 jasiirado oo kaliya. inta kale waxaa loo isticmaalaa dalxiiska, wax soo saarka iyo ilaalinta deegaanka. Maldives waxay juqraafi ahaan dhacdaa dhigaha mara 1 digrii oo koonfur ah iyo 8 digrii oo waqooyi ah iyo loolka mara 72 digrii iyo 74 digrii oo bari ah. jasiiradda ugu ballaaran jasiiradaha Maldives ka kooban tahay waxaa la yidhaahdaa Gan. Maldives waa waddanka ugu hooseeya dunida celcelis ahaan. heerka dhulka uu badda ka sarreeyo waa 2.4 mitir. waxay jasiiraddu halis u tahay in biyo qarqiyaan markasta oo baddu kacdaba. xitaa waxaa arrintaa shaaciyay qaramada midoobay hay-adda masiibooyinka dunida. dadka qaar baa ku nool jiilaal caddaaday irkoo caadna laga waayay. ciddi kulul abaartu ay dhacdo ciiddu ay olashay cuudka iyo dadkoo iroole iyo carruur aata la ilaaday. qaarna daruuruhu marbay u curtaan urasho dayreed. marunbaa carradii xaalifka ahayd xamash ku cuuraa. caanuhuba marbay daad noqdaan cuudku badiyahay. wax caddaatay weeye in dunacaynba ayn tahay. jasiiraddan 365 maalmood ee sanadkaba waa cagaar iyo biyo. 26 Disembar 2004 waxay tsunami-dii kacday ee ka timid dhanka badweynta Hindiya waxay qarqisay 7 jasiiradood
oo ka mid ah jasiiradaha Maldives 14 ka mid ahna way baabi'isay waxaana ku nafwaayay 108 qof taariikhdu waa dhaxalka dhabta ah ee ummadi leedahay waxaana loo ilaaliyaa sida waalidku dhaxalka uga tago ubadkiisa waana dhacdada ka marakacda waxyaabihii la soo dhaafay taariikhda ummadda reer Maldives waa mid fac weyn jirtana in ka badan 2500 sano sida ku cad kitaabkii uu qoray qarnigii 17aad qoraagii Carbeed ee la oran jiray Allaama Ahmed Shihaabuddin kitaabadii iyo sheekooyinkii uu qoray waxay marag fur u noqdeen marka laga hadlayo taariikhda fog ee gobolada koonfureed ee Aasiya dadkii ugu horeeyay ee degay jasiiradan waxa la oran jiray Davis waxayna 269kii Ciise hortii alayhi salaam ka soo haajireen gobolada koonfureed ee dalka Hindiya gobolka Kalinga iyo dad ka soo jeeda dalka Sri Lanka sidoo kale ganacsatadii hore ee Carbeed Madagascar Malaya Indonesia iyo Shiinaha sidee bay ku soo gashay diinta Islaamku Jamhuuriyadda Maldives qorayaasha badankoodu waxay qorayaan in dadka reer Maldives ay 1400 sano ahaayeen ama haysteen diinta Buddhismka waana mid lagu xuso maanta taariikhda Jamhuuriyadda Maldives bal haddaba qarnigii 12aad ganacsatadii Carbeed ee u kala gooshi jirtay badweynta Hindiya iyo dunida kale ayaa si joogto ah tabliiqin iyo wacyigelin ku waday dadkii reer Maldivianka iyo boqortooyadii Buddhismka ahay 1153kiina isu bedeleen muslim 1193kiina saldaladii waxay qaadatay darajooyinka Islaamka sida sultaan sheekh amiir iyo wixii la mid ah waxaana bilaabay sultaan Maxamed ibn Abdullah waxaana isku xigay saldalad taxane dhaxaltooye ah waxayna saldalada isdhaxlida ahayd soo afmeerantay 1932kii markii ay saldaladu isu rogtay nidaam doorasho sultaannimo ah darajada sultaannimo ee doorashada ku salaysnayd ma cimri dheerayn wuxuuna wadanku 1960meeyadii isu rogay habka doorasho madaxweyne iyo ra'iisul wasaare saldalada Maldives soo jireenka silsilada saldalada Maldives waa mid fac weyn mana aha mid qormo kooban lagu soo koobi karo balse aynu tusaale yar oo kooban ka soo qaadano sida ku cad sooyaalka cimriga dheeraa ee jasiiradaha Maldives waxay bilaabantay saldaladu 269kii Ciise hortii waxaana ugu horeeyay boqorkii la oran jiray Sorodas Aruna Aditya oo ka soo jeeda boqortooyadii Kalinga ee dalka Hindiya silsiladii Maldives ee saldalada ahayd waxa 1341kii iyo 1347 kursiga ku fadhiyay sultaan Ahmed Shihaabuddin wuxuuna ka dhaxlay aabihii sultaan Umarkii koowaad waxaana bedelay 1347kii walaashii oo iyadu shirqool ku dishay waxaana la oran jiray sultaana Khadija sultaana Khadija 1347 ilaa 1363 ayay saldalada talada u haysay waana muddo dhan 16 sano waxaana bedelay ninkeedii ugu horeeyay Maxamed al-Jamaal 1363 ilaa 1364 waxayse shirqoolkeedii labaad ku dishay ninkeedii sultaan Maxamed al-Jamaal oo lagu naanaysi jiray Maxamedkii quruxda badnaa waxayna mar labaad saldalada la wareegtay 1364 ilaa 1374 waxaana la wareegay haddana ninkeedii labaad sultaan Cabdullaahigii labaad sanadkii 1374 ilaa 1376 waxayna sultaana Khadija mar saddexaad shirqool ciqaab iyo dil ku samaysay ninkeedii taladana la wareegtay mar kale 1376 ilaa 1380 waxa kale oo soo maray saldalada hablihii la kala oran jiray sultaana Rada Fathi oo iyadu sanad haysatay 1380 oo kaliya oo ay dhinaca hooyo ka walaal ahaayeen sultaana Khadija sidoo kale sultaana Dain
oo saldalada haysatay 1385 ilaa 1388 oo uu dhalay sultaan maxamedkii koowaad waxayna saldaladu soo afmeerantay sidaan kor ku xusayba 1968 darajada suldaanka ama suldaanada waxaa la raacin jiray suldaanka 1200 ee jasiiradood ee dhulka iyo badaba